intii colaaduhu ay jireen dalka Soomaaliya laga soo bilaabo 1991kii oo ahayd markii xukuumaddii la riday uu ka ahaa madaxweynaha Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre ayaa dalka Soomaaliya waxa aafeeyay colaad aan kala harin oo wajiyo badan yeelatay. dad badan ayaa dhintay, Allah u naxariisto. dad badan ayaa dhaawacmay, Allah ka bogsiyo inta nool. dad badan ayaa barakacay oo u hayaamay dunida dacaladeeda iyagoo aan jecleen inay hayaamaan si ay lafahooda ugala baxsadaan iyo caruurtooda intii markaa ay kari kareen. oo maxay arrintaasi ku dhacday? dhibaatada xoogga leh ee ka dhacday dalka Soomaaliya iyo colaadda sokeeye oo ay markaasi dadku u dagaalameen waxa ay ku magacaabeen ereyga ka bilowda qabiilka, taas oo aan wax macnaa sameeyeen inay wax dumiso mooyaane. haddii la dhintay oo la dhaawacmay oo la barakacay, hanti badan baa burburtay. magaalooyin badan oo qurux badnaa ayaa dhulka lala simay sabab la'aan iyadoo aan dibadda looga soo duulin. taasi waxa ay keentay nasiib darro caalamka intiisa kale ay dareemaan dhibaatada ka dhacday dalka Soomaaliya. waa dad aan garan dantooda, waa dad ayagu isku duulay iyagoo wax isu ah. waxaa dhacday in wiil iyo abtigii ay isdileen, taasi oo aan ahayn mid waafaqsan xagga Soomaalinimada iyo xagga diinta Islaamka intaba. waxaa kadib dhacday dhowr iyo 20 sano intii ay colaadu socotay inay barbar socotay hanti badan oo la kala boobay oo dadka qaar ay u arkeen inayba ku habboon tahay in la gaaray xilligii boobka meel ay ka akhristeen cid garanaysa lama arko. dhul ayaa la kala boobay bannaan, guryo dhisnaa oo kala heera oo kala quruxa oo kala baaxada. beero ayaa la kala boobay, taas oo aan loo aaba yeelin dadkii iska lahaa. hantida la kala boobay waa 2 nooc: hanti dadkii ku jiray si xooga looga bixiyay oo laga saaray qaarna la laayay, iyo hanti dadkii markii ay ka carareen oo ay lafooda la baxsadeen qolyo kale ay yimaadeen ay u arkeen inay iyagu iska leeyihiin, taasoo meel ay ku qoran tahay iyo meel laga akhristay midna aan garanayn. waxay arrin soo socotaba waxay dadku sugayeen in dawladda Soomaaliyeed ay dhashaan si loo xalliyo dhibaatada iyo murugada xoogga leh oo ay dadka qaarkii dadka kale u geysteen. ninka ka yimid meel fog ee isagu dhacay meel uu u yimid dhowr 100 kilomitir kadib waaba la gartay oo isaga laftiisu khalad buu ku socdaa. waxaase ka sii daran hooyada iyo aabbaha dariska la ahaa hooyo iyo aabba kale, taas oo ay keentay hooyadii iyo aabbihii halkan deganaa inay ku tashadeen hooyada iyo aabbaha ay dariska la ahaayeen hantidooda inay boobaan. miyay iloobeen darisnimada wanaaggeeda iyo su'aalaha berri la iska weydiinayo dunida inta la joogo iyo aakhira marka la tago intaba? waa nasiib darro ku habsatay bulshada Soomaaliyeed qaarkeed. ma oran karno magaalo kasta oo Soomaaliyeed ayaa boob ka dhacay, laakiin waxaynu oran karnaa dhowr magaalo oo ay magaalada Muqdisho koow ka tahay. Muqdisho waxay ahaan jirtay muraayad muunadeedu aad u qurxoon tahay oo dunida la tartanta. rag ayaa u soo baxay aan u aaba yeelin oo quruxdeedii dhulka dhigay oo kadibna ehel uga dhigay murugo iyo mugdi. taasina waa nasiib darro kale oo meel ay ku qoran tahay oo laga soo akhristay cid garanaysa haba yaraatee aanay jirin. dadka Soomaaliyeed ee iminka idaawanaya waxay isugu jiraan oo ay u badan yihiin dad la dhacay hantidoodii. waxaa ku jiray u badan yihiin dad iyagu kuwii wax dhacay ah. waxaa kaloo u badan yihiin kuwo og in dad la dhacay ay jiraan yaqaanana kuwa wax dhacay. kuwaas iyagu aan la dhicin waxna aan dhicin ee laakiin la socdaahay waa 2 qaybood: qayb og oo inay ka hadasho ka cabsanaysa oo isle nafsadaada ayaa lagu seejin, iyo qayb og laakiin aan ka hadlaynin oo loo arki karayo inay garab iyo gaashaanba ku siinayso kuwa iyagu wax dhacay. waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga xagga waqooyiga Ameerika iyo koonfurta Ameerika, New Zealand, Australia ilaa bariga fog ilaa bariga dhexe ilaa Afrika ilaa Yurub. dad ayay biilaan bil walba oo aqalkeeda xawaaladaha ayay lacag ku diraan iyagoo leh aabbe intaas ayaan soo diray, hooyo intaasaan soo diray, abti intaasaan soo diray, adeer intaas baan soo diray, ayay intaas baan soo diray, eedda intaas baan soo diray, habaryar intaas baan soo diray. waa waajib in la istaageeraa maxaa yeelay Soomaalinimada ayay ku jirtaa iyo Islaamnimada. waxaa jira dadkaas iyagoo wax biila dad ka mid ah oo dadka ay biilaan ay degan yihiin guryo aanay iska lahayn oo ay boob ku fadhiyeen muddo. waxa ayaan darro ah, waxaa nasiib darro ah dadkaasi biilka bixiya inaanay hal maalin ama hal saac ama hal daqiiqa aanay dadkaas la hadlin oo aanay oranin maad ka baxdaan hantida aadan lahayn. taasina waa nasiib darro kale oo meel laga akhristay aanan garan iyo meel ay ku qoran tahay. waxaa jira carruur agoon ah oo aabbayaashood iyo hooyooyinkeed colaadda iyo abaaraha ay ku dhinteen, guryihii ay lahayeenna aan deganayn oo meelal buushasha degan, roobkuna uu ku da'o, cadceeduna ay ku kululaato, dhaxantuna ay u dheer tahay. yaa yidhi
yaa banneeyey yatiinta waxooda in la cuno ama la bannaystay in la deganaado. waxaa hubantiya magaalada muqdisho iyo magaalooyin kaleba oo kooban in yatiin badan ama agoon badani guryahoodii aanay deganayn ay bannaanka ka joogaan, laakiin ay degan yihiin aabbayaal iyo hooyooyin ay ka muuqato sunnadu oo haddana degan guryaha yatiinta cid u bannaysana lama arko. miyaanay ka baqaynin su-aasha qiyaamaha oo ah yatiinka qofka waxtara sida loo abaalmarinayo ka isagoo hantidiisa cunana sida uu dhibaato u mudan karo? taasina waa nasiib darro aanan garan meel ay ka barteen ama ay ka akhristeen. intaasi waxaa dheer dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay ku dadaali jireen berigii hore inay aad isu taageeraan, laakiin markii dambe ay soo baxday iibaan darro iyo dhibaato iyo fadqalalo meel laga keenay haba yaraatee aan la garan. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa doofaarku ficil la'aan baa loo cadaabaa, waxayna doonta qasabtay inaan jawaab siiyo in aan u bixiyey nacas uu firiid dhalay naasa weyne, ninkaasoo ah ninka la yidhaahdo Cagmadhige ee ka hadla telefishinka Universal. sida muuqataa gurbaankii colaadda ee aan lahaa dhowr iyo 40 sano kadib waa laga bogsoon doonaa ayaa dib loo tumayaa. inta aanse barnaamijka u gelin waxaan jeclahay inaan ku furo hadalkayga beelaha Habargidir Duduble si aan ka firsi lahayn loogu aflagaadeeyay, aflagaadadaasina uu geystay nacas uu firiid dhalay naasa weyne Cagmadhige. marnaba ma ihi kuwa ka soo horjeedahay in dadku ay cabiraan fikradooda, maxaa yeelay xoriyatul qowlka waa qodobka qura ee aan ku dagaalamo. hase yeeshee waxaa la yaab iyo amakaag ila noqotay in ninka lagu magacaabay Cagmadhige uu si qaawan u caayay Habargidir Duduble. waa ceeb, waa yaxyax weeraha uu adeegsaday. kaba sii darana caawa barnaamijkiisa waxa uu ku dafaray ninka la yiraahdo Cagmadhige hadalkaasi ceebta aflagaadada ilhaanada ah ee uu beelweynta Habargidir ugu gafay. weerihiisaasi waxaa ka mid ahaa dad baa ka soo duulay 700 kiiloomitir iyo 500 kiiloomitir, markaas ay xamar yimaadeen oo xamar xoog ku qabsadeen oo guriyihii ballaqaysteen. kaba sii darna waxa uu yiri kuwii la deganaa ayaa dadkii diriskooda halkii ka difaaci lahaayeen iyagana ballaqadii wax ka galay oo guriyihii ballaqaystay. kuwa soo duulay miyuusu ula jeedin beelaha Habargidir Duduble. ninka noocaasa ee qashinka uu cunayay iyo xaaraanta uu cunay jirkiisa sida aragtay ka dhigeen ayaa maanta waxa uu noqday nin beeshiisa caaya oo loo adeegsada. laakiin dadku waxaysan ogeyn ninkaas inuu dhalin haliyey ah oo lagu magacaabo Xaaji Axmed Sandheere Axyaa Wadani, ninkaasoo ahaa raggii gobonimada dalka gacan weyn ka soo geystay. laakiin waa iska caado waxaa la yiraahdaa Firiidi wuxuu dhiraa nacas. nacaskaasina waa ninka la yiraahdo Cagmadhige. haddaba anigoo Daahir Cabdulcaali Sow ayaa waxaan go'aansaday bal inaan Cagmadhige iyo aniga aad ciyaarta dhex martaa daawataan.